بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى taariikhdu maanta waa 13 bisha 2022 maalin sabti ah waxaan joognaa magaalada Kismaayo kaam ku yaalo oo lagu magacaabo kaam galey kaamkan waxaa degan dad barakacyaal ah oo ilaa 142 qoys ah runtii ceelkan waxay soo gaarsiisay Maamud Charity khayr Allah siiyo ceelkan waxaa baxsanayo gabdho muxsiniin ah isku tagay oo 22 gabdhood ka kooban sadaqa ay soo baxsadeen yaa 2 isbuuc ka hor bay lacagta soo gaadhay ana iska mashquulsanaa maanta uu Ilaahay qadaray inaynu bilaawno Ilaahay subhanahu wa ta'ala gabdhahaasi waxaan u weydiinaynaa inuu Ilaahay dambigooda dhaafo in dambi waalidiintooda ceelkaasi maanta ay dadkaas walaalahooda ee loo qodayna sababtiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala muraadkooda Allah ku sahlo ceelkan insha Allah ta'ala jigjigla la saaraya maanta bilaabanaya insha Allah ta'ala waxaan u sameynaynaa boor lagu qori doono magacyada gabdhahaas insha Allah ta'ala maamadan gacanteeda midig taagan waa maamada booskan laga qoday ceelka mas'uulka ka ah ayadana la doonayo inay dadka macna u tartiibiso u nidaamiso mas'uuliyad ilaa waxa la saaraya qalab oo lacag joogo oo qaali ah marka haddaan la ilaalinin wala iska foqsanaya wax wali mas'uuliyad bay u baahan yihiin marka ayadana waa seenaya kalimad insha Allah ta'ala Maamud Charity oo barnaamijka isku soo xirtay soo qalqalas Ilaahay dambigeeda ha dhaafaan leenahay anigoo macallin Cabdullaahi waxay idin leeyahay insha Allah ta'ala ceelkii maantaan asteynaya yaan bilaabaya taariikhdan ay ku beegan tahay 13 bisha 2022 wixii daa xagay ka ahaayeen Maamud lacagta mar hore soo gaarsiisay insha Allah ta'ala ana iska mashquulsanaa in hawlo bi dhaamin dadkii abaarahii iyo wax baan ku mashquulsanaa maanta Ilaahay suurta galiyay maamada hadaan u dhiibay insha Allah ta'ala maamada ku soo dhawow insha Allah dadku u duceey Rahmaanir Rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin naceel dadu sadaqaystay Ilaahay waxaan ka baryaynaa intii sadaqaystay oo Ilaahay uu lahaa in Ilaahay ka sawaabiyo khayrkiisa iyo fadaa'ilkiisa waalidkiisa Allah ugu naxariisto ayagana khayr degdeg Allah ku siiyo xeradan kaam galey waxa weeye 155 qoys Ilaahay fadaa'ilkeeda intii la baxday iyo intii qodayba Ilaahay fadaa'ilkeeda iyo barwaaqadeeda Allah siiyo Allah dambi baaf ku siiyo Allah mawtaadkooda iyo waalidiintooda ugu naxariisto